soo dhawaada dhageystayaal qaybtii 17aad ee sheekadii beer raaxo. habeen taariikhi ah ayaa dhacay. waa cusub iyo nolol cusub ayaa u bilaabmay Aamina iyo saygeedii. habeenka arooska waa habeenka koobaad ee wiil iyo gabar ay kulmaan iyaga oo isku ah say iyo oori, kuwaas oo arooska ka hor ku kala noolaa laba duni oo kala duwanaa. habeenku ma aha habeen midna caadi u ah oo labaduba waxay dareemayaan deganaansho la'aan iyo fakar. gabadhuse waxay si gaar ah u dareemaysaa cabsi, warwar iyo xishood. haddana waa habeen labaduba farxad iyo riyaaq jirkoodu la dubaaxinayo, si mid kastaa midka kale uu u fahmo bilaabashada nolol cusub oo raaxo leh. xaflad heer sare ah oo si weyn looga soo shaqeeyey ayaa loo dhigay. dad aad u fara badanna way ka soo qayb galeen, iyadoo kooxna ay ka tumaysay xafladda arooska. isku dooftihiin lamaanays doortayo wadaaga dareentihiin ilaa xad isteeqayo istaawadaatihiin inaadinaad isku dooftihiin lamaanays doortayo wadaaga dareentihiin ilaa xad isteeqayo istaawada aad tihiin. duntana laysugu xidho tihiin dawadaad tacayn dadka ka maqraatiyo warkiina ku diirsadee. dadka ka maqraatiyo warkiina ku diirsadee. haddii aad dadab gasheen damaashadiyo ciyaar dartiin baa loo tumee alloo gurigiina dartiin baa loo tumay alloo gurigiina haddii adadab gasheen damaashadiyo ciyaar dartiin baa loo tumee alloo gurigiina dartiin baa loo tumay alloo gurigiina maalin wanaagsan, jimca wanaagsan. halkanaynu joogno oo dadkan tirar badan leh ee Soomaaliyeed isku yimaadeen maantay wax kala ma aha. waa maalin farxad iyo qadarin iyo xurmadeeda wadata. jimcaha ayadoo tahay haddana waxaa maanta loo madlan halkan loo fadhiyaa arooska iyo aroosadda kala ah Aamino Idris Maxamed iyo Axmed Xaaji Cabdiqaadir oo labaduba laba magac oo karaama iyo sharaf ay ku dhahan tahay kala wataan. Aamino Idris Maxamed waa gabar dhalinyaro ah oo aqoonyahanad ah oo ka soo qalin jabisay jaamacadaha, waxayna waqtigeeda inta ugu badan siisay sida loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan iyo dadka barakacayaasha iyo dadka liitaba, si ay noloshooda ay wax u taraan dadkooda waxna u bartaan, iyada waqtigeedana inta ugu badan ay siisay dadkaas dhibaataysan. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ku duuday in dadkaas ay caawiyaan iyaduna ay soo garab istaagaan. Aamino Idris Maxamed waxa ay ku guuleysatay maantana gogoshan loo fadhiyaa arooskeeda iyaduna u aqalgalaysa Axmed Xaaji Cabdiqaadir oo ah wiil dhalinyaro ah oo ay jaamacadda ku soo wada qalin jabiyeen, ahna nin wadani ah oo wadaniyada iyo qiimaheeda isla garanaya. waxaana hubanti ah halka Aamina Idris Maxamed ayadoo kali ah ay samafala guud ahayd maanta hadday sii hesho Axmed Xaaji Cabdiqaadir saaxiibayaal. waxaa hubanti ah
in labadu iskaashan doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan nolosha sidoo kalena ay caawinta ay qayb iskaga kaashan doonaan iskana caawin doonaan si dadka Soomaaliyeed barakacayaasha iyo dadka tabaaleysan ay u sii dhiirigelin lahaayeen waxaa goobta xafladda ku sugan waalidiinta iyo asxaabta iyo qaraabada iyo asxaabaha kala duwan ee gobolada dalka iyo dibadiisa kaga yimid si ay aan laga sheekeen arooska qiimiga iyo qadarinta mudan ay maanta u joogno ee Aamina Idris Maxamed iyo Axmed Xaaji Cabdiqaadir waxaana hoolka fadhiya labada dhinac waalidiintooda waa qoyska Aamino Idris Maxamed oo dhanka aabaha iyo dhanka hooyada ay ka socdaan iyo asxaabtii iyo qaar kamid ah dadkii ay caawin jirtay qaba kamid ah oo maanta yiri arooska samafalaha weyn ee Aamina lan koo sheekaymayo waa inaan joognaa waxaan dhinaca kale jooga Axmed Xaaji Cabdiqaadir waalidkiis iyo asxaabtiis iyo qaar ka tirsan saaxiibada jaamacadda ee labadaba ee glass wadaag ahaayeen waxaan xilligan soo gaarnay xilligii khudbadaha waxaa gacanta lagula jiraa xalwadii iyo mamacaankii oo dadka ay ku baashaalayaan xilliga waxaana geli doonaan khudbadihii iyadoo koox fanaaniin ah ay ka tumi doonaan muusiga ah iyadoo halkaas tamaashaadka arooska iyo farxadda Aamina Idris Maxamed iyo Axmed Cabdiqaadir waa Axmed Xaaji Cabdiqaadir oo ka dhici doona maanta waxa markan ku xiri doona dhanka mikrofoonka kuna wareeji doona aabihii ka dambeeyay awaabinta iyo quruxda iyo qadarinta iyo karaamada ee hadda leedahay Aamino kuna abaabiyay samafalida inay dadkeeda wax tartaa waa aabihii u soo dhaxirtay yaraanteedii awaabinteedii ilaa ma jaamacad ka bixeedii ilaa ma ay gaarto in dadkeeda ay waqtigooda ugu badan ay siiso aabayaashu kala duwane waa aabe Idris Maxamed oo goobta inay wada sugan waxaan rabaa inaad shacabka aad isiisaan isla markaana shacab iyo sidoo kale maral lagu soo dhaweeyo soo dhawaad bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad ay u mahadsan tahay wariye waxaan ka helay sida quruxda badan ee aad xafladda noogu xiriirinaysay runtii farxad ayayna nagu wada beertay runtii madashan farxadda leh ee arooska iyo aroosadda ubadkeenna waa runtii mid gebi ahaanba iyaga sida ay u faraxsan yihiin si ka dheeri ah haddaana waalidiinta annagana noo wada farxad gelisay anigoo ku hadlaya magaca qoyska gabadhayda Aamina waxaan halkan hambalyo uga jeedinayaa arooska iyo aroosadda waxaan ilaahay uga baryaa inuu ka dhigo gurigii kheyr qaba isla markaasna ubad kheyr qaba kala hela Aamina waxaan ku kalsoonahay inay tahay gabar ka bixi karta mas'uuliyadda qoyska oo ay qaadayso waxaana hadda taasi daliil u ah sida ay magac iyo maamuus ugu dhex leedahay bulshada iyadoo mas'uuliyad weyn u haysay dhinaca samafalkana gacan weyn ka geysanaysay gaar ahaan dadka jilicsan ama loogu yeero barakacayaasha oo ay si weyn u taageertay marka waxaan filayaa in halkaasi laga dheehan karo mas'uuliyadda xushmadda iyo dabacsanaanta iyo naxariista ku dheehan Aamino inay tahay mid ku filan shakhsiyadeeda iyo qoyskeeda intaba waxaan isna rabaa inaan wax ka yiraahdo wiilkayga oo isagana ay u qalgalayso Axmed Xaaji Cabdiqaadir iguma cusba aad baan u sheekaysanay sidaa daraadeed Axmed waxa iga soo baxay inuu yahay nin dhalinyaro oo furfuran oo lagu aamini karo Aamina oo ah gabadheeda isla markaasna hanan kara Axmed waxaan ka helay aqoontiisa heerkay gaarsiisan tahay shakhsiyadiisa dabeecadiisa iyo waliba xilkasnimadiisa intaba marka waxaan leeyahay Axmed waad mudan tahay inaad gabadheeda ku milkiyo waxaan rajaynayaa in aad noqon doontaan hadduu Allah uu daliiraali ka noqdo kuwii isku waara isla markaasna ubad kheyr qaba kala hela waxaa la yiri nin hadal badiyay ma wada dhihin nin yareeyna kama wada tagine waxaan rabaa in hadalkayga ku soo gaabiyo farxadan caawo aan halkan ku wada joogno ilaahay ka dhigo farxadii qoyska u bulaaliya weligoodna farxadan oo kale ku wada jooga
insha allahu tacaala idinkana kasoo qaybgalayaasha daatihiin waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah oo aad inoo hurteen oo aad nagu sharifteen isla markaasna aad si farxad leh arooskii aroosada ugu soo dhaweyseen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay wuxuu ahaa aabe idris maxamed oo ah aabahii dhalay aamina maantana aqalgalkeedii halkan u fadhino markana u yeero aabe xaaji cabdiqaadir maxamuud oo isna kalmateen ka dhihi doona arooska maanta aynu u madlanahay u fadhino ee aamino idris maxamed iyo arooska kale ee axmed xaaji cabdiqaadir waxaana markaan siinayaa aabe xaaji cabdiqaadir maxamuud sacabka waa xaggiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta leh ee sida wanaagsan loo soo abaabulay ee arooska ah gabadhayda Aamina waa gabaraan si wanaagsan u aqaan oo ah gabar aad iyo aad baari u ah deriska u roon bulshada u roon qaranka u roon dhan walba u roon dalka u roon wiilkana waa wiilkayga oo waa wiil dal jira mujaahid ah wanaagsan ummadda u fiican naftiisa u fiican waxaan rajaynayaa arooska kale inuu noqdo mid mira dhala oo hadduu alla kuu rooyahay wax wanaagsan ka soo baxa ubad khayr qaba noqda naftiisa iyo dalkiisa diintiisa mid daafaca gabar hadday noqotana sidoo kale waxaanu leenahay soo dhowaada aroos wanaagsan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka wakhtigooda noo huray ee nagala soo qayb galay munaasabadatan xafladatan arooska ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin rag iyo dumar sida sharafta leh ay halkan u yimaadeen aad baan uga mahad celinaa insha allah intaas ay noo joogto dhegaystayaal sheekadii beer raaxo